aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa ku faraxsanahay inaan waraysi la yeesho inay waraysi iga qabtaan oo aan waraysi siiyo aad baan ugu faraxsanahay inta badan wuxuu ka imanaya dhanka dawladda federaalka buu ka imanaya dawladdii Cumar Cabdirashiid madaxda ka ah bayna bilaabatay waqtigeedii dawladda Cali Maxamed Geedi iyo Nuur Cadde iyo isaga dameeyeen wax khilaafi ma jirin sababta markaa keenaysay oo daruuriga ahaydna waxay ahayd dabcan madaxweynaha laftiisa Puntland ka soo jeeday oo intuusa noqon madaxweynaha qaranka wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland xiriirku markaa marna ma lahayn wax madmadow iyo wax khilaaf intii ka dambeysay baa khilaafyadaas ay abuurmeen khilaafka kan ka horeeyay oo dawladda Cumar Cabdirashiid waqtigeedii dhacay laba meelood buu ka yimi wuxuu ka yimi marka koowaad dawladdu waa dawlad federaal ah federaalka macnaheedu waxa weeye dawlado ayaa xubna ka ah oo federaalkaas ku midaysan Puntland curadkii bay ahayd dawlado kale oo federaalka xubin ka ah ma jirin dadka madaxda dawladda federaalka madaxda ka ah ama wasiir ahaadeen ama ra'iisul wasaarayaal ahaadeen ama madaxweynaha ahaadeen iyo dadka dawladda xubinta ka ah markaa Puntland madaxda ka ah heshiis hore oo lagu dhaqmi jiray oo ay yaqaanin siday labadu u macaamiltamayaan ma jirin waxay ahayd in la bilaabo oo siday labadu u wada shaqayn lahaayeen marka hore qorshe laga yeesho laga wada hadlo waxa ugu weyn oo sharciga marka dawladda dhexe hadda u yaali waa dastuurka weeyaan dastuurka sharci guud oo qodob leh weey waa in sidaas isaas buu qorayaa laakiin wuxuu u baahan yahay in loo tarjumo qodobadaas shuruuc kale oo lagu dhaqan gelinayo qodobada laftooda مثلا xukuumaddaas Cumar Cabdirashiid oo wasiir badan oo reer Puntland ku jiraan ban wafti ahaan gaalkacyoonay hadda fiiri ra'iisul wasaaruhu Puntland buu ka soo jeeday Cumar Cabdirashiid baa xukuumadda xubnaheeda uu soo kaxayo oo gaalkacyo la yimi badidoodu reer Puntland baan ahayn laakiin maxay yihiin wasiiradii dawladda qaranka ka wakiilka ah bay ahayd Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud iyo wasiiradiisii oo Puntland baanu isa soo hor fariisanay maxaanu marka ka wada xaajoonayna qodobo ajandada ku jira oo dheer oo taabanaya xagga amniga xagga horumarka iyo dib u dhiska xagga arrimaha bulshada xagga shuruucda baanu ka wada hadalnay wuxuu ahaa heshiiskii u horeeyay oo dawladda dhexe iyo dawladda Puntland dhexmara kii u horeeyay baanu dhignay markaa xilligaas qodobadu ka koobna qodobo macna leh oo muhiim oo waaweyn bay ahayd oo saldhig u noqonaya asaasna u noqonaya iskaashiga dhexmaraya iskaashiga iyo wada shaqaynta dhexmaraya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka markaanu la noqonay heshiiskii oo xamar kula noqonay dhankayagii buu ka fuli waayay dhankii dawladda dhexe ayuu ka fuli waayay in sidaas aanu ugula heshiinay in loo hirgeliyo xagga dawladda dhexe ayuu ka fuli waayay khilaafkaasna wuxuu ka yimi xukuumadda iyo madaxtooyada federaalka heshiiskii la soo galay marka xagga la tagay dood baa ka timi qodobadaas sidaas inaad ka soo dhigtaan inaad sidaas u samay dood baa ka timi